ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن أروريا صوبان maanta ama saaka baan uga jeedaa insha Allah biidni illaahi kariim. waxaynu karinaynaa insha Allah quraac yar oo fudud. waxaynu ka sameynaynaa waa alaabtaad arkaysaan, waa beed, waa xabad yar oo xabuub, waa xabad yar oo kaarota, waa qajaar, waxa weeye mays ama qamandi bisil, waxa weeye beans. intaas aynu ka sameynaynaa insha Allah biidni illaahi kariim. wax kasta oo qudrada aad haysato waad ka sameysan kartaa. marka asxaabaa tiri quraacdan rabnaa fadlan inaad nala wadaagto. marka saaka waxaan sameynayaa inta yar simbaliga hadii Ilaahay yiraahdo insha Allah biidni illaahi rahmaan. markaynu hareerno subaxdii waxyaabo kala la iskaga quraacdaa, marka laakiin si waxaan tixgelinayaa asxaabtayga soo codsatay insha Allah biidni illaahi. bismillaah, watan alaabteeni inta yar quruxda badan baynu ka sameysanay. maasha Allah tabaarakallah. karinteedii baa inoo hadhay. waxaan asxaabay alaabtii waan yareeyay si aan idinku soo koobo fiidiyoyada insha Allah biidni illaahi rahmaan. marka halkaa waxaan ku shubnay markii ugu horeysay 2 maqcadood oo saliid aad haysato ah. saliid saytuun baan isticmaalay anigu ama olive oil. waxaad haysato ay ku kasan kartaa insha Allah biidni illaahi kariim. markay noo yara casaato waxaynu ku daraynaa baradhada insha Allah biidni illaahi rahmaan. inta yar baan rabaa inaan ka soo saaro quraac yar oo maxaa kaa galay ah. intaasaan rabaa maxaa kaa galay inaan ka soo saaro insha Allah biidni illaahi kariim. quraacda loo sameynayo laakiin 2 step baan u sameeyaa, laakiin saaka stepka waxaan ku tusayaa dadka qaar baan u ka haysanin, qaar baa ilaahay xaalkooda yahay marka inaad tiraahdo maaha waxaan wax kasta oo sameynaya. dadku waxay awoodaan iyo waxaan awoodin inaad soo warhaysan. marka insha Allah biidni illaahi rahmaan gadaal baan idinka tusi doonaa telefoonka lagu sameynayo insha Allah. waxaynu ku darnay filfil ay yar shiidan. hayraadka arkaysana waa qajaar oo soo raacay. after 2 minutes waxaan ku taraynaa insha Allah si qurux badan bay u shiilantay. gacantaydan ku tijaabiyey. waa inay midda noqoto aad weynana ka gudislaan aadna waa inaan jileec noqonin waayo qudaarta la hadhay. qudaarteena yareeda kaleena ku daraynaa sida qajaarkii, kaaroodkii, xabuubtii. masha Allah tabaarakallah. sabara waa ku cuni kartaa. qudaar caafimaad leh, caafimaadka u roon, jidhka u roon, sideedana waa ku cuni kartaa. qalis marka shaysi after 2 minutes kalayna daboolka oo dheereynaa insha Allah biidni illaahi rahmaan. marka beeniska midka fuulka baan u jeedaa, cafwan maaha beenis iyo waxaan jeedaa mayska qamandida karsan. wax yar baynu ka isticmaalaynaa insha Allah. biyaheedana waynu iska ilaalinaynaa labadaba waayo inay naga qoydeen naga dhajuqda ma rabno. insha Allah tabaarakallah hayikum. sidaas aad ku cuni kartaa ay kugu deeqdayba. sidaas ayaad 1 minute ayaynu hadii ilaahay daboolka u yara dheeraynaynaa. kabacdina maxaa inoo hadhay beedka halkan kuma dhex darayno waayo aad bay u badanta qudaartu. marka way naga dhajaqaysaa ilaa qaab bay noqonaysaa. marka inaga oo qaabka iyo systemka iyo quruxda ka duulayna gaar baynu shiilaynaa insha Allah. masha Allah tabaarakallah. quraacdeena waa tanaa diyaar quruxdeeda. masha Allah quraac yar oo dalac bilaash hadana soo macaan. masha Allah beedkii baynu saarnay. waxaan marka hore ku shubnay saliid yar. kabacdina ayaynu sameynayna insha Allah. wax yar oo milixana waynu ku darnay waayo tan baa milixaysan. marka milix badan ma rabo ama maaji waa ku darsan kartaa. masha Allah tabaarakallah. waa kana beedkeeni yara quruxda aad moodaan. la qurxiyaba waa la qurxiyaa yara dalac bilaash hadana masha Allah ishu qabanayso. masha Allah dhinacii kalena rogay quruxdiisa waad arkaysaan. المدمج لحاحون عاسعان هذه الجودة. ما شاء الله تبارك الله. حييكم. ما شاء الله تبارك الله أصحابي. ما تصح لابتيني يريد قراعديني يريد
dilaac bilaash kaynu ku sheegaynay dilaac bilaash miyaa waa ka qudaarta waxaad haysataad ku darsan kartaa maasha allah tabaaraka allah fiikum ilaahay oo noo kadab intaan haysana ilaahay rabbi oo raxmaan oo sii biliis asxaabtayda qaaliga ah aad iyo aad baan idin jeclahay waxaanan u taaganahay markasta inaan idin raali geliyo wax kasta oo idin raali gelinaya kulaylkii baa ka baxaya waad arkaysaan maasha allah tabaaraka allah waxaan idin leeyahay asxaabey ha ilaabina subscribe ta share ta like ta commentiga thank you for watching aad iyo aadna waad mahadsantiin daawashadayda thank you for watching waa walaashiin Faatuma Genyo waxay idin leedahay meel kasta dunida dacaladeeda ka joogtaanba nabad igu waara is iyo sharaf ku waara assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh